kulanti wacan wanaagsan daawadayaal qaybtan waxaynu ku eegaynaa khilaafka siyaasadeed ee ka dhex qarxay gudaha xisbiga jamhuuriga ah waa xisbiga madaxweyne Trump kadib heshiiska dhex maray Mareykanka iyo Iiraan. haddaba maxay yihiin qodobada ay isku hayaan siyaasiyiinta jamhuuriga sidaasee khilaafkani u saameyn karaa ajandaha madaxweyne Trump iyo siyaasadda Mareykanka ee bariga dhexe? xogahaas oo dhan waxaa inoo faahfaahinaya isla markaana isha ku hayay Xaashi. ayasina waa maadsantahay aad iyo aad u maadsantahay maalmahan xaqiiqatan waxaa isha aad loogu hayaa taweynta xisbiga jamhuuriga dalka Mareykanka oo laba group markii horeba ahaa oo dagaalka ku ahaa group markii hore dagaalka ka soo horjeeday ase aan smuujin dadka xilalka hayeen ka hadlanaa iyo group dagaal ka macashayaal ah oo war morgariska loo yaqaano oo aad iyo aad markaasi dagaalka u taageersanaa labadaba ficil celin ayaa ka imaanaysa waxaana ay u muuqataa in qaar ka mid a tuweynta hidroobo ay muujiyeen walaaca ay ka qabaan dagaalkan. Lindsey Graham isagoo ka mid ahaa dadka sida weyn dagaalka u maalgashaday, Donald Trumpna ugu tirtirsiyey dagaalka in uu qaado gobolka South Carolina dalka Mareykanka laga soo doorto ayaa qoray inay jiraan waxyaalo walaac iyo shaki muujinayo heshiiska ka buuxa. wuxuuna mar kale uu sheegay inay arrintan ay cadeynayso waxyaalo kale oo la yaab leh. dhinaca kale ninka loo yaqaan senatorka isaguna gobolka Louisiana laga soo doorto dhawaan uu Donald Trump isku dhaceen kadib markii Donald Trump uu taageeri diiday dib u doorashadiisii oo loo stigreeyay ama lumiyay wax loo yaqaano primary bidk ama tartankii primaryga israa'iilka xisbigiisa ayaa ku tilmaamay in dagaalkan runtii uu yahay waxa uu ugu yeeray in dowladda dalka Iiraan hankeedii iska daa wax kale buu yidhi in wax kale laga helo oo wax kale laga soo saxeexo ama lagu qanciye xataa hankeedii sii socodsada iyo hayaankeedii ku doondoonaysa dhisitaanka nidaam weyn oo nuclear aan xataa laga hor istaagin. waa dadkii ugu tabeeyey wuxuuna ku tilmaamay in ay Mareykanku uu wajahayo ayuu yiri Peel wuxuu yiri Mareykanku wuxuu wajahayaa siyaasadii arrimadeed ee ugu foosha xumeed abid tan iyo 250 sanadood ee wadanka uu xorta ahaa ayuu yiri bishan dambe afarteeda 250 guuradii baa loo dabaaldegayaa dalka Mareykanka oo markaasi millennium quarter of millennium baa la yiraahdaa marka 1000 sano yani rubac 1000 sano baa loo dabaaldegayaa marka wuxuu yiri 250 sanadood siyaasadii arrimadeed ee ugu liidatay ee wadanka Mareykanka uu wajaho ayaa la wajahayaa. waxaana ay u muuqataa runtii dowladda Mareykanka madaxweyne Donald Trump inuu hadirta dhex taagan yahay dagaalka uu dhameeyay oo 60 noqotay waan ku sheegi doonaa waxyaalaha Trump uu runtii uu ku guuleystay oo maartay meesha waxyaalaha guusha waan ku sheegi karaa isagoo guusha ugu weyn maanta uu taagan yahay laakiinse waxaa cadaatay in aan la isku raacsanayn oo aad iyo aad aan soo raacsanayn arrintan iyo qaabka dagaalka markii dambe loo dhameeyay. Xaashi waxaan ku weydiinayaa xubnaha jamhuuriga ee ka soo horjeeda madaxweyne Trump iyo heshiiskan Iiraan la galay horta maxay yihiin sababaha ugu waaweyn ay u diidan yihiin heshiiskan amaba ma waxay ka cabsi qabaan baa la dhihi karaa in Iiraan laga qaado cunaqabataynta isla markaana Iiraan xoogeysato mise waxa jirta oo markaas ay aaminsan yihiin in heshiiskan uu khatar ku yahay amniga Mareykanka iyo xulafada Mareykanka gaar ahaan Israa'iil? waa laba qolo markii horeba dagaalka aan raalli ka ahayn in la qaado oo ayagu waxay leeyihiin dagaalka markii hore in la qaado khalad bay ahayd oo waxay leeyihiin markii hore cid lagalama tashan dadka Mareykanka looguma daneen ujeedadiisa lama cadaynin qorshihiisa lama fadhiisin looma tala badsan lama dhegeysan dadkii xirfadlayaasha dagaalka ahaa ee militariga iyo aqoonyahanka iyo xogii warbaahinta ka imaanayay iyo sidoo kale dadka sirdoonka iyo dadka khubarada lama tashan dagaal wuxuu ahaa koox yar ay ku tala xumaysatay qoladaas qabto kadibna natiijadii markay dhalisay natiijadii dagaalka way dhalisay waxay ku leeyihiin ujeedooyinka dagaalka lama gaadhin ee dadka loo sheegay oo Iiraan baa dagaalka ku guuleysatay bay leeyihiin takalena waxay leeyihiin oo waxay kaloo leeyihiin heshiiskii la gaadhayna ma aha wax maaragtay haba yaraatee bay leeyihiin fiican laakiin Trump heshiiska wax faa'iido kaliya uu ka helay waxa dagaalku ka baxsaday dagaalkii inuu ka baxay taan ba faa'iido waa qolada kalena waxa weeye qoladii dagaalka doonaysay daylahayd Iiraan laga hortago Iiraan si jilicsan baa loola dhaqmayay madaxweynayaasha ka horeeyay Trump hal aamino wararka iyo sirdoonka ay keenayaan Israa'iil hub bay haysataa nuclear bay haysataa kan waa laga taqalusi karaa marka weer lagu qaado ay wadaadka hogaamiye la dilo wadanka hanta harbaa ka dhacaysa isku dhex daadanaya dadkoo dhan gabaskay wararkay qaadanaya qof walba isaga dawladda qaniini dabadeedna si kooban baynu u duminaynaa nidaamkii hore dadka noocaas markaa sheekada noocaas sheegay haddeerto waxay dhaliilayaan foolxumada natiijadoodii
waxay iyagu ka taliyeen was Lindsey Graham ninkan hawk senatorka ah oo dadka maartay qalabsan ah oo maartay nidaamka Israa'iil u shaqeeyo dadka Mareykanku ay leeyihiin nooma shaqeeyo annaga oo waa dad kale u abaana oo karaysan marka iyagu waxay leeyihiin ma ahayn Iran heshiis jilicsan oo aan kala in la galo 14 point la saxay ma ahayn koo wanaagsan saasay ku tiraabayaan xaashiyo muddo dheer Mareykanka iyo Israa'iil waxay hayeen xulufo istiraatiiji ah imikana waxaa muuqata in madaxweyne Trump uu qaaday waddo diblomaasiyadeed oo heshiis kula galay Iran xogaha qaarna waxay sheegayaan in Trump arinta heshiiska uusan kala tashan Netanyahu arintan ma waxay muujinaysaa isbedel ku yimid xiriirka Mareykanka iyo Israa'iil Trump wuxuu leeyahay waan la tashtay wuxuu leeyahay waan la hadlay wuxuu leeyahay koriga hoosba waan Bibi Netanyahu waan la hadlay waan ula taliyay waan ugu celceliyay laakiin isaga tiiday ayuu leeyahay inuu wanaaga maqlo wax xishmeeyo aniga in maqlo oo uu rasbigo isaga saas horta Trump dood su'aalaha laakiinse waxaa cadaatay markaa in ay labada nin ay ku kala boodeen qaabka dagaalka loo dhameynayo saadaradeed Netanyahu wuxuu waday dagaalka in la sii wado duqeynta la sii wado Iran muddo dheer la duqeeyo oo dagaalku uu noqdo mid iska sii socda marka waxa cadaatay Yaasino marka runta ku sheego in Trumpna uu doonayay waddo uu dagaalkan uga baxsado iyo meel uu uga fakado tina uu helay oo ah in Iran afka u kala furto oo tiri waa idila hadlanaa sidoo kale uu helay wadamada dhexdhexaadiyaal ah oo nabadda dhexdhexaadi kara sida Pakistan oo kale iyo Qatar iyo wadamo kale oo gurmada dabeedna uu safe facing oo exit uu helay exit strategy wala yiraahdaa marka kadibna uu helay waddo uga siibto ugu dambeynna tii uu sameeyay marka xaqiiqatan Israa'iil hadeerto waxay noqon doontaa mid go'doonka Israa'iil hada uu sii socon doonaa waxa ku dhici doonaa ugu saan aamsanahay cunaqabateena badan oo kala la saari doonaa Mareykanku wuxuu ka fikiri doonaa dhaqaalahan uu siiyo imkaaniyaadkan iyo taageerada lixaad kale iyo balaayiintan dollar ee ciidankooda uu siiyo waayo sidan Donald Trump hadeerto maalinta dhawto wadiga arkay hadalkii kulula iyo sidii uu u hiifay dhulka ugu jiiday iyo inaysan Israa'iil jiri karteen haddii aan Mareykanka uusan ahayn waxaas oo dhan dadka Mareykanka way maqlayaan dib baana loo xisaabinaya waxaana soo badanaya dadka imaanaya Washington hadday tahay marka Congress-ka labada aqal iyo dadka kale technocratka ama dadka kale farsamo yaqaanaadkanada ee diidan in Israa'iil taageeradeeda si indhabeela lagu sii wado hadeertan waxba soo baxday inoo maqlayaan baxdadan warmeeshan god baa ku jiray ka leex qofan ku maqlaynin oo kaliya aniga aan ku gaxeeyo kaale godka igula dhac kaliya wada sheekooyinkan hadda way soo tarayaan marka way adkaa doontaa inay sii wada shaqeeyaan waana waxyaalaha keenaya in Israa'iil ay sii go'doomayso marka dambeeya reer galbeedkii kalena mar hore ayayba iyagu badankoodii ee tartiib ogala laabteen taageerada Israa'iil siinayay xaashiyo muddo dheer Mareykanka iyo Israa'iil waxay hayeen xulufo istiraatiiji ah imikana waxaa muuqata in madaxweyne Trump uu qaaday waddo diblomaasiyadeed oo heshiis kula galay Iran xogaha qaarna waxay sheegayaan in Trump arinta heshiiska uusan kala tashan Netanyahu arintan ma waxay muujinaysaa isbedel ku yimid xiriirka Mareykanka iyo Israa'iil wuu sheegayba waa caqabad ayuu yidhi wuuna aaminsan yahay wuxuuna maaha kiisi bariga dhexe kiisi American first oo dhan buu caqabad ku noqday ama ugu horeen Mareykan caqabad ku noqday kii uu leeyahay peacemaker baan ahay nabadda adduunka dhan baan sameeynayaa oo nabad baan oday nabadeed baan noqonayaa buu caqabad ku yahay hanaankii dimuqraadiyadda dunida uu lahaa Trump waa gaarsiinaya uu caqabad ku yahay arrintii uu lahaa the golden age oo ah in Mareykanka barwaaqeeyo ayuu caqabad ku noqday oo dhaqaalihii Mareykanka ayaa dhulka galay marka caqabado kasii weyn buu ku sii yahay wuuna hadeerta uu dareensan yahay arrintan dagaalkana waxyaalaha uu ku siray ee uu godka ku riday bay ka mid ka tahay oo uu u sikhray ama uu si maartay sahlan ugu qarciyo uu yidhi war meeshan dagaal baa soo jiiyo dagaal weyn ma aha waxaan wana kala tuuranaa nimankan markay hogaamiyaasha ka dilo ayatullaha oday 9 jira qof 9 jira taladiisa oo iska garanaysaa iyo intuu shaqeey karo iyo intuu tabar iyo energy hayo 86 sano buu jiray Cali Khamenei baan dilaynaa kadib wixii baa kala daadanaya waa sheekooyinka fahan darrada ah ee ku dhacday ee la yaab kale bay noqotay Iran cadaas dhaqaalaha la saaray kadib way soconayaan sheeko aan soconayn bay noqotay marka waxyaalahaas oo dhan waxay ahaadeen kuwo dhamaaday Trumpna hadeertu uu aaminsan yahay in la khiyaameeyay ugu dambeyntii daawadayaal intaas ayaan ku soo koobaynaa barnaamijkeenii iyo xogihii ugu dambeeyey ee tooska ahaa ee ugala qayb qaadanayay xaashi isla markaana isagu inoo soo diyaariyey mar walba isha ku hayay warbaahinta Horfadhi Media saacad walba daqiiqad kasta wararka soo kordha iyo xiisadaha dunida markasta ka dhacaya inaynu ku kulmi doono barnaamijkan xiga nabadgelyo warar falanqayn
xogaha ugu dambeeya xaqiiqooyinka fahamka heerka sare ee wararka diblomaasiyadda caalamka